Soomaaliya ayaa markii xalay xilli madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday shir ugu yeeray xubnaha hogaamiye dowlad goboleedyada. Shirkaas ayuu farmaajo dalbaday inuu ka dhaco magaalada Muqdisho maalinta Khamiista ay bari. Inkastoo aanay madaxda Soomaalidu badi saameynin go'aamada xayiraadaha, haddana shirka uu madaxweynuhu dalbaday bari ayaa loo badinayaa inuu baaqan doono. Sababta ugu weyn waa inuusan madaxweynuhu marin dhabii lagu qaban lahaa shir noocan ah isagoo dhinaca kale aan haysan wax sharciyada. Farmaajo waxa uu Puntland iyo Jubbaland la dagaalamayay 4 sano oo xafiiska joogay. Hadda oo waqtiga ka dhamaadayna ma jiraan wax heshiis oo shakhsi ah ama mid siyaasadeed oo kala dhaxeeya hogaamiyaasha labadaasi maamul. Isagoo aan wax isku soo dhawaanshaha ka abuurin khilaafyada labadaasi maamul kala dhaxeeya ayuu bartamihii bishii hore ugu yeeray shir, laakiin waa diideen. Shir kale uu ku baaqay inuu ka dhaco magaalada Garowe ayaa sidoo kale hirgeli waayay. Isla dhabbihii ayuu mar kale maray Farmaajo isagoo raadinaya jawaab ka duwan labadii hore. Dadka xoogaalka waarintan waxay sheegayaan in lagu wareersan yahay inuu madaxweynuhu shirkaba dhab ka yahay in kale maadaama uusan shirka ka hor sameynaynin xiriir toos ah iyo isku soo dhawaansho la isugu iman karo. Puntland iyo Jubbaland ayaa sidii caadada ahaydba waxay diidmo kala hor yimaadeen qoraalka ka soo baxay madaxweyne Farmaajo iyagoo ku baaqay in fursad la siiyo dadaalada uu wado ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. Qoraalkooda waxaa ka muuqatay in aanay soo xaadiri doonin shirka bari. Waxay kaloo shuruud ka dhigeen in la helo goob amni ahaan la isku haleyn karo iyagoo UNSOM iyo AMISOM ka dalbaday inay arrintaasi gacan ka geystaan. Beesha caalamka ayaa la sheegay in labada maalmood waday dadaallo uu ku dhici karo shirka uu ku baaqay madaxweynaha waqtigu ka dhacay. Puntland iyo Jubbaland waxay la kulmayaan cadaadis weyn oo ka imaanaya beesha caalamka oo la rabo inay shirka ku tagaan, laakiin waxaa la leeyahay xitaa hadday shirka aqbalaan shirku ma qabsoomi karo bari iyadoo sabtida la filayo inuu dhaco banaanbax looga soo horjeedo madaxweynaha waqtigu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa safar ku jooga waddanka Turkiga, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in laga yaabo inuu bari soo galo dalka. Laftagareen ayaan isagoo cadeynin ilaa hadda mowqifkiisa ku aadan dadaalada uu wada ra'iisul wasaare Rooble, waxaana loo arkaa inuu si weyn ugu hoggaansan yahay amarada madaxweyne Farmaajo. Waxaan kaloo loogeyn qanaacada Qoorqoor iyo Cali Guudlaawe ee maalmihii dambe iyo inay ogol yihiin inay ka qayb galaan shirka uu Farmaajo ku baaqay maadaama ay garwadeen ka yihiin dib u heshiisiinta u dhaxaysa ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo hogaamiyaasha mucaaradka. Shirkan oo si weyn u naafeynaya qorshii uu Rooble u istaagay ayaa baaqashadiisu waxay fursad xooggan siin doontaa dadaalada uu wada ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maadaama la aaminsan yahay inuu madaxweynuhu shirkan ugu talagalay inuu ku fashiliyo isku soo dhawaanshaha mucaaradka iyo xukuumadda xilgaarsiinta. Madaxweyne Farmaajo oo siyaasadda ku soo galay inuu yahay nin nabadeed oo dib u heshiisiinta ku wacan ayaan ilaa maalintuu xafiiska yimid ku guuleysan wax heshiis siyaasadeed ah. Cagsigeedana waxa uu madaxweynuhu isticmaalaa awood ciidan. Maanta ra'iisul wasaarihii uu magacaabay xilliga kala guurka ah ayaa muujinaya nabadoonnimo siyaasadeed iyo baahida loo qabo in la isfahmo. Dad badan ayaa la yaab ku tilmaamay inuu madaxweynuhu u labisto inuu shirkaasi mid kale ku dacfuro si uusan Rooble u qaadanin libinta dib u heshiisiinta siyaasadda. Soomaaliya waa meesha qura ee ninka ku magacaaba uu dhinaca kale diidayo inaad abuurto dhaxal wanaagsan oo siyaasadeed oo aad wax ka faa'iidi karto, dalkuna wax ka faa'iidi karo, kii ku magacaabana uu ka heli karo sumcad iyo bogaadin. Baaqasho ku timaada shirka bari waxay dhinaca kale xoojinaysaa sida ay u dhimatay sharciyadii hogaamiyihii 4 sano ee la soo dhaafay ee Soomaaliya. Horay waxay beesha caalamku Farmaajo u sheegtay inuu go'aamada dejiyo inta uusan dhamaanin waqtigiisa ku ekaa 8 bishii la soo dhaafay ee February, uuna ku xisaabtamo in haddii uu muddaxileedku ka dhamaado inaanay jiri karin cid uu markii uu doono shir ugu yeeri karo iyo wax xoojinaya sharciyadiisa iyo awaamirtiisa. Laakiin Farmaajo taas kama faa'iideysan. dadka siyaasadda ku dhex jira waxay dhammaan talahaan u soo jeedinayaan in xoogga la saaro dadaalada uu wado ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo aan dhinaca kale waqti badan la siinin Farmaajo oo musharax u ah xilka madaxweynaha, kaasoo u muuqda inuu wax walba ku jaangooynayo sidii uu ku sii joogi lahaa xafiiska ama uu ugu soo laaban lahaa kursiga. waxay u badan tahay inuusan qabsoomi doonin shirkii uu ku baaqay Farmaajo, waxaase la eegayaa waxa uu Rooble fala maalmaha soo socda oo ay jiri doonaan banaanbaxyo looga soo